cudurrada nafta aadamaha ku dhaca iyo suluugiisa kuwa ugu khatarsan waxaa ka mid ah cudurka la yidhaahdo wahsiga in adigoo xoog iyo awoodii leh aad waxba qabsan karin aad waxba xaqiijin karin aqoontii baad leedahay laakiin aqoontaadu midho iyo wax soo saar ma leh xooggii iyo muruqii baad leedahay laakiin wax soo saar ma leh waad wahsanaysaa nashaadkii iyo firfircoonidii baa kaa maqan waa cudur weyn cudurkaas dadka oo dhan buu haystaa ninba inuu dhan yahay ninba inbuu u joogaa laakiin dadka waa wada haystaa dadka qaarkood waxaad arkaysaa dhinac uu u jeedsado iyo hawl uu qaabilo oo uu wax ka keeno ma jirto quraan xifdi buu bilaabayaa markuu wax yar qabto waa ka istaagayaa kadib ma hawshii oo dhan baa istaajinaya cilmi dalabkiisuu bilaabayaa dhowr majlis markuu fadhiisto waa dhaqaaqaya adduunyo iyo shaqiyo xamaal buu gelayaa adkaysi male waa soo cararaya waxbarashuu gelayaa meel ma gaadhsiinahaye waa ka tegahayaa kasalka noocaas iyo wahsigaasi akhiiran ruuxa wuxuu gaadhsiiyaa wax la yidhaahdo inuu nolosha ku fashilmo tan adduunka keliya ma ahe ta aakhara xataa inuu ku fashilmo oo wixii siduu uga wahsanayo oo dib ugu riixayo waad qaban doontaa iyo isgaadhgaadhaysaa shaqadii kadibna naftu waxay ku qancinaysaa iyo shaytaanku maba qaban kartid iska daa farkintaada isaga jir cudurkaas waxaa sababa oo keena laba shaytaanka iyo naftaada xuntay kugu jirteen khayrka kula rabin khaasatan markuu ku saabsan yahay wahsigaagu ilaahay daacadiisa iyo wixii aakhara aad wax ku heli lahayd wixii ilaahay jeclaa markaad ka wahsanayso shaki ma laha waxaa ka dambeeya shaytaan oo kugu sallidmay oo ku haysta iyo naftaada xunta oo la shaqaynaysa laakiin ilaahay fadligii tabaaraka wa tacaala alla tabaaraka wa tacaala cudur ama mid macnawi ha noqdo ama mid maadi ha noqdo cudur ma soo dejinin illa daawu u soo deji sida nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh daawadaasi cudurrada loogu talagalay qaarna bini aadamka ilaahay waa u furo waa tusaa qaarna waxaa laga yaabaa inaysan muddo helin oo inan iktishaafin laakiin cudur aan daawo lahayn ilaahay ma soo dejinin tabaaraka wa tacaala wahsigu marka wuxuu leeyahay daawo leeyahay daawooyinkiisa waxaa ka mid ah asbaabta wahsiga kaa saari karta kaana dhigi karta cunsur mujtamaciisa wax soo saar leh naftiisa anfaca mujtamaciisa anfaca wax beero oo midho soo saara adduunkiisa iyo aakhiradiisaba wax qabad ah inaad noqoto waxaa kaa dhigi karaya inaad asbaabta qaadato asbaabtaana ka waxaa ka ah oy ka bilaabataa horta noloshan waa inaad leedahay hadaf iyo qaayo aad doonayso inaad xaqiijiso waa inaad taargad leedahay maxaad rabtaa inaad noloshan xaqiijiso taargad iyo hadaf iyo qaayana waxaa ugu weyn tii laynoo abuuray oo ah inaan ilaahay caabudno rabbigan raalli gelino tabaaraka wa tacaala marka inaad nolosha qaayo leedahay ood hadaf leedahay oo meeshaad u socoto aad garanayso waxaad doonaysa inaad xaqiijiso waa inay kuu caddahay marka kadibna saad ku xaqiijin lahayd waa inaad maraaxil iyo u dejisato jidkaad u mari lahayd haddaadan hadafba lahayn dariiqa bilowgiisaad faashil tahay dariiqa bilowgiisaad faashil noloshaaduna waa nolol wahsi iyo meermeer iyo hurdo iyo dib u dhacaw qodobka labaad markay kuu caddaato waxaad u socotay meeshaad u socotay waa inaad la timaaddo go'aan dhab ah oo qalbigaaga ka soo go'ay oo aad rabto inaad ku xaqiijiso alcaziima asaadiqa
go'aan adag oo qalbigaaga ka yimid waa inuu jiro hadduusa qalbigaaguba mutaraddid yahay oo uusan go'aan lahayn oo daciif yahay ma samaysaa iska daa qanaaco kulliyana aadan ku haysanin ayadana waxay ka mid tahay waxyaalaha keena meeshaad u tillaabsataba inaad soo fashilanto sidaas daraaddeed waa in aad go'aan qalbigaaga rasmiya gaadho inaad shaygaa xaqiijiso bini aadamkana nebigu wuxuu ku sheegay sal alla alay wasalam sifaadkiisa waxaa ugu run badan uguna qabsan wax lagu sifeeyo waa hammaam waana xaarif hammaamku waxa weeye wuu doonitaan badan yahay intaa qalbigeennu ma istaagayo sakan ma istaagayo waxbuu doonayaa waxbaa soo gelaya waxbaa ka baxaya yacni humuum baa soo gelaysa khawaatir baa soo gelaysa go'aan buu qaadanaya waa isbeddelayaa waa in marka wax weeye aad la timaado go'aan adag la timaado go'aankaasi waa meesha wax ka go'aan hadduuba qalbigaagu daciif yahay iyo go'aankaagu nolosha waxba ka xaqiijin mayso iyadana waad wareersanta qodobka xigaaya saddexaad waxa weeye waa in markaad go'aan gaadho dadaal rasmiya aad la timaado oo dadaalkii uu u baahnaa waxaad u socotay iyo hadafkaad rabtay inaad xaqiijiso dadaalkiisii waa in lagaa helo inta tabartaada inaadan ishakranin inta awooddaada waa inaad bixiso haddaadse ishakrato oo camalkii iyo shaqadii loo baahnaaba qaban weydo oo aad barkinta dheeraysato waxba ma xaqiijin kartid sidaas daraaddeed baa allah tabaaraka wa tacaala labadaa arrimoodba hal aayad buu ku sheego wuxuu yidhi waman araada alaakhira wasaca laha sacyaha wahuwa mu'min faulaa'ika kaana sacyuhum mashkuura ruuxii aakhara doonaya doonid aakhara horta waa inay kugu jirto kadibna ma doonid keliya kugu filan maya wasaca laha sacyaha camalkii iyo shaqadeediina waa inuu la yimaado dadaalkeedii la yimow yaa doonitaanka qalbiga iyo go'aankiisa kadib shaqadii gal adkaysi u yeelo ilaahay sunnadiisa weeye tabaaraka wa tacaala qodobka xigaayi waxa weeye dadaalkaa markaad la timaado keligii kuguma filee rabbigaa kaalmayso awooddeennu waa iska xadidan tahay kownkanna ilaahay baa gacanta ku haya wuxuu bixiyey unbaa baxa wuxuu diidayna waa diiday isagu hadduusan kuu kaalmayninna waxba ma xaqiijin karti kay dadka jannada wuxuu nebigu ku tilmaamay sal alla alay wasalam kelimada ah laa xawla walaa quwata ila billah awoodi ma jirto xeeladina ma jirto ilaa ta alla mooye tabaaraka wa tacaala adiga awooddaadiiyo xeeladaaduna waxba ku tari mayso in ilaahay kuu kaalmeeyo mooye juhdigaaga iyo dadaalkaaga haddaadan kaalmo rabbi kaashanin oo rabbi kuu kaalmaynin midho ma dhalayo saas daraaddeed baa rabbi qur-aanka wuxuu inugu baray hal aayad ah baa waxaa laynugu baray ujeeddadaan u nool lahay iyo ujeeddadaa jidkaan u mari lahay iyo wasiiladaan ku xaqiijin lahay ujeeddadaan u nool lahay maxay tahay iyaaka nacbudu waay allaw keligaa baan ku caabudaynaa waa ujeeddadii laynoo abuuray wasiilada iyo jidkaan u maraynana muxuu yahan ku xaqiijinayna wa iyaaka nastaciin adaan kaalmo ku weydiisanaynaa way ya maba xaqiijin karna haddaadan noo kaalmayn asbaabtaa waxaa ka mid ah in haddii intaad dadaasho aad ku fashilanto waxaad rabtay waad gaadhi wey derbi baa kaa hor yimid ha isdhiibin ha niyo jabin gadaal ha u guranin isku day haddana jidka ka wareeg dhanka kale ka soo gal ha barin naftaada wax la yidhahdo dacfiga ha barin naftaada wax la yidhahdo isdhiibidda ha barin naftaada inay gadaal u gurato meesha aad gaadhay horay uga soc derbiga kaa hor yimid isku day inaad jabiso ood ka gudubto haddaad jidkeeda heli kartana soo wareeg laakiin dib ha u guranin lanna man laja walaj haddaad albaabka ku madax adayto waad ungeli marka dambe laakiin haddaad daciif noqoto xogaa yar markuu kaa hor yimaadaba adib u cararto xogaa markay kugu adkaataba aad tidhaahdo war meeshan lama geli karo adeer wax weeyaan dadkii adduunkan iyo aakhiratoona wax ka xaqiijin lahaa ma tihin waxaa ka mid ah asbaabta in aad la saaxiibtood la noolaatood mujtamaca ka doorato dadka
hamiga sare leh dadka cazimada adag leh dadka muntijiinta wax soo saaree wax xaqiijiya ee aadan la noolaanin oo la saaxiibin dadka wahsada kuwa dariiqyada taagtaagan oo waqtigooda meelaha taagtaagnida ku lumiya oo sheekaysiga maqaayad iyo fadhi ku dirirka ku lumiya oo mar uu jiifo iyo mar uu qaad cunahayo iyo mar uu sarqaansan yahay ay tahay dee kuwa haddaad la saaxiibto nolosha waxba kama qaban kartid adeer iyagoo kale unbaad noqon man jaalasa jaalas darisku wuxuu ku siiyaa wuxuu yahay saaxiibkuna wuxuu ku siiyaa wax uu isagu watuu ku siiyaa sidaas daraaddeed dadka liita ee hooseeya alla saaxiibi xataa haddaad daciif tahay dadka wanaagsanee sare markaad la saaxiibto kor baad u kacaysaa ayagaad gaadhaysaa waxoodii bay wax kaa siinayaan waad ku dayanaysaa waa ka nabigeennu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruuxu cidda uu la socdee saaxiibka la yahay ayuu diintiisa iyo dhaqankiisa leeyahay ee ka fiirsada ciddaad la saaxiibaysaa marka ka fiirsa yaad la socotaa dadka nolosha ka dhacay oo daatay haddaad la socoto dadka yacni jaraa'imta galhaya ee mufsidiinta haddaad la socoto sidoodoo kale unbaad natiijada ku dambayn doonta sidoodoo kale unbaad ku dambayn sidaas daraaddeed dadka hamigoodu sarreeya wax xaqiijinaya cazimada leh ee kasalka iyo wahsigu aan lahayn ama uu ku yidhi waa la saaxiib wax badan baa iska kaa bedeli asbaabta waxaa ka mid ah inaad ilaahay barido tabaaraka wa tacaala inaad ilaahay magan gasho laba arrimood baad ka magan gasho wahsiga waxa keena oo shaytaan iyo naftaada ah aad badiso inaad ilaahay ka magan gasho وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إلهي ما قال كعر نبي قالنا صلوات ربي والسلام عليه دعاديسي وحا كم دهيت إنه ليه شري مركو ربي أسمادي سكبر يكذب أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي الله وحا ما قال كاقاهي الشيطان كشرتيس إيا النفط إذا الشرك هذا نفط الشرك هذا ما قال كاقاهي هي الشيطان كدبن كيس أما الشرك كيس ما قالوا إلهي كعاب دعادي سيو حكم إلى النبي قالنا صلوات ربي وسلام عليه راد كلا وضع كبر شيء دلالك أي كجود دلالة أيان إن وناك كاربان أيا وحكم لنا يوهسجا كبر لنا مرنا أيجي بإله لجمع جنجليا مرنا أثر كي كبر شيء وهسجا بإله لجمع جنجليا مركز النبي قالنا صلى الله عليه وسلم دعادي سيو حكم إلى اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل إله وحن ما جنك هاي عاجسد يوهسي عجزكم حوي لو هذا كلمة ويكلت بدلين عجزك وحل إلى هذا إن أذكري ويدبا خير كي يوناكي أود ومهيس تمر ومهيس تعجزي بالله كسل كان محل إلى هذا وأذكري كرتا أود ذي والله لكن ما قبلنيس حب بدنا وقونت كتير وعقلك كتير وكرتنا كتير لكن مع ذلك ويل فورره ما توسنكر حول ما قبل كرتير كاسنا وحل إلى هذا وهسي بالله وكسل لبضب النبي إلهي وكم من قلت صلوات ربي وسلم عليه marka ilaahay inaad magan gasho waxa ugu dambeeyay hadaad rabto inaad wahsiga ka baxdo habeenka qayb kamid ah toos oo ilaahay dhikrigiisa iyo taacada ku qaado waxa nabigeena ka sallallahu alayhi wasallam inuu yiri midkiin habeenkii markuu seexdo shaytaanku saddex guntimood buu qadaadka kaga guntayaa saddexda guntimood mid walba waxa ku shaabadaysan oo ku garaacan habeen dheer baa jire iska seexdo war habeenkii waa wali waagiina ma dhawaa hurud seexo buu ku dhufanay wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ruuxii maduu soo kaco intuu naftiisa la dagaalamo canaanto soo kaco oo ilaahay xuso ilaan marka hurdada laga soo kacba adkaar baa jirta ilaahay lagu xuso markuu saa u soo kacay baa ilaahay buu xusay saddexdii guntimood mid kamid ah furmaysa waa ka soo kacay waa weysaystay guntintii labaad baa furmaysa waa soo kacay oo wuu tukaday guntintii saddexaad baa furmaysa wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam markaasuu waagu u baryayaa
asagoo firfircooni iyo nashaad leh wax qabasho doonaya naftiisuna aad u faraxsanta farax iyo firfircooni isagoo ku jirto buu waagu u bariyaya markaasuu leeyahay warsaaka talo waxaad ku dhaqaajisama waxbaa kaa hor imaan karay yani hamiga ku jira iyo xoogga ku jira waa faraxsan yahay nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam hadduu sidaa yeeli waayo oo waagu u baryo siduu u hurday sida baktigii sariirta u saarnaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam markaa waagu wuxuu u baryayaa isaga oo naftiisuna liito oo murugsan oo hami iyo murugi saaran tahay ta kalena wahsanaya oon isqaadi karinba sidaas daraaddeed daarto inaad wahsiga ka baxdo ood wax qabatood wax xaqiijiso habeenka qayb ka mida ilaahay dikrigiisa iyo taacada ku qaado daawooyinka ugu fiican